in la yiraahdo maxaa la yiraahdaa muddo inta la eg 15 bari 7 bari iyo wixii la midka ahi xad malaha maalmo inta la eg oo ugu badan ma jiro wa inma in kalamadu yurjacu fihi waxa loo laabanaya ila al-aadati wal-urf sida urfiga iyo caadadu ay tahay umba mar walba loo celinaya madaahibta qaarkood ba waxay qabaan yawmun wa layla ba ugu yar inay maalin iyo habeen inuu joogo waxa ugu badan 15 bari waxa kale sida shaafiiciyada kale ay tilmaamaan laakiin waxa soo dhan waa maxay daliil kuma dhisna mana haysto ee urfiga baa loo celiyo markay celceliyeen inta baa u soo baxday inuu dhiiga caadada uu joogi karo marka mar walba urfiga baa loo celinaya المسألة الثالثة مسألة سدحت غالب الحيض حيض كأنت غالب أنت أجوبا أما دمركو سيدا غالب كو أنتابو ليجا صعدا وغالبه أنت أجوبا 6 ولح أو 7 أما وتضوء بمعنى لح مع الموت أما تضوء مع الموت أي ليجا صعدا لقوله صلى الله عليه وسلم هذا الكون نبي لحمنة وكير بنت جحش تحيضي في علم الله إسحيت سي إلهي أجانشيه 6 أيام لح مع الموت أو 7 أما تضوء مع الموت ثم اغتسلي قبيساء يكيري وصلي تكو 24 يوما لباتني أفر مع الموت أو 23 يوما أما سدحي لباتن مع الموت كما يحيض النساء سيدا يدمرك حيضك وحيضان ويطهرن أي طاهر نقدان لميقات حيضهن مركة ليق عادة ذو الجوغة وطهرهن مركة طاهر نمد ذو الجوغة حديثك أبو داود الترمذي أيها ولي شيخ الألباني حسن أيكري حديثك طيب مسألة ومحي انت غالب كوه دمركو لح مع المود اما تضوى مع المود ايو ديقا كسعودة غالبك كهر وكقو إكراء لكن انت سيؤبدنيه المجورة تيقودو لح اما تضوى وحالا لود اللي سيدي رواية دا حمنة بنت جحش او اهيد هويني ديك فرن وكدعي markaasay kala garan weysay sida ka muuqatana waa maxay mubtadi ama mutaxayir ay ahayd dhiigeedii way kala garan weysay kee caada ah keese maxaa la yiraahdaa dhiig furan ah markaasay nabiga u tagtay sallallahu alayhi wasallam markaasuu ku yiri 6 bari oo kamida maalmahaasi waxaad u qadartaa inuu xayd yahay hadaadan adii ogeyn fi cilmi ilaahay baa garanayee iska qadaro waa maxay 6 bari ama 7 bari xayd ahaan u qadar inta ku soo hartay bisha oo 24 maalmood ama 23 maalmood ahna dhiig furankan ka soconaya mushkilo ma lahe qabayso oo waa maxay maxaa la yiraahdaa tuko oo waa way tukanaysaa maalmaha kale saasoo markii Nabi sallallahu alayhi wasallam ku tawjiihiyay المسألة الرابعة مسألة أفراد ما يحرم waxa xaraan ku noqonaya bil hayd ay bisabab al hayd dhiiga caadada iyo nifaasi dhiiga dhalmada maxaa haweenta xaraan ka noqonaya markay haydka uu ku dhaco ama dhiiga dhalmada uu ku dhaco yahrumu waxa xaraan noqonaya bisabab al hayd haydka sababtiisa iyo nifaasi dhalmada umurun arrima ayaa ku noqonaya xaraan awalan al wad'u fi al farji in loo galmoodo oo waliba farjiga looga tago ayaa xaraana لقوله تعالى بنا أدلل فاعتزلوا النساء هوينك كديرادا في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن هنا ودوانين ومحي إلا أي طاهر كالنقضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحجر حين نزلت آيات مركي سودكتي دمركه كفو هذا مركي حيد كقبان اصنعوا كل شيء وحوى البسمية إلا النكاح نكاحة مويه نكاحة مركوا محي يعني الجماع إن قلمدي رسمي أهيد موجيه وحكى لو دن وسمعين كرتان وقلمدا أم بدسكيل على نيسان بوت المامي مركا وحل الديدوا محي الجماع في الفرج إن فرجيجا لوجا قلموضه أما مباشرة يتتابشرة كلا يباشال كلا وحبا مشكلة ملا ووحبا ناوي ولذلك مسروق أيوه حقوي من عائشة رضي الله عنها مركز حكويري عائشة وحبا الربا السؤال إلى كويدي وأنا حشونية معناه السؤال ضمر كي يكسابسن أيو الربا إنو ويدي ومركز وحي كتري رضي الله عنها حشون محايا لي أنيقا هو يدا وكلانا هاي أديقنا ويل كي يجيباتها هاي ويدي بكويري مركز ويدي وحكويري هوانتو هدي ديق عاددو أي قبتو محا ننكا uga oo sideebuu maxaa la yiraahdaa ula dhaqmi karaa markaas ay ku tiri u sheegtay isna'u kull shay illa nikah
nikaaxa ama jimaaca farjiga ma ogiye inta kale waa maxay waa la ogol yahay wax banaan way qodobka koowaad marka aljimaacu fi lfarj thaniyan qodobka labaad oo xaaraanta noqonaya dhiiga dhalmada iyo caadada الطلاق waa furniinka ما بنانا لقوله تعالى فطلقوهن دمر كفر لعدتهن كفرا عدة ترسيقوضة وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر هذا النبي عمر كيري لما طلق ابنه عبد الله امرأته في الحيض مركي ويلكيسي عمر ويلكيسي وعبد الله يا عبد الله بن عمر وإيه مركو هوينتيسي وفري في الحيض إيضا ديجي حيض كعادة قبطه أيو النبي عمر بوحو أمري مره فليراجعها أمر عبد الله بن عمر إنه إسلامتي سوء عشده مره فليراجعها إنه سوء عشده أمر مركا ومحي وحديثكو ومتفق إيضنا مركا وحاران وحال إرادة وطلاق بدعية أيال إرادة إن دمركو إيغو ديغا عادة قبو إن لفره ومحي لما أقلا ما دعي طلاقا ما دعي بابو كتاب الطلاق أقول تجدنا ومسألة خلافية طيب قضم كسدحات ثالثا الصلاة وحد دمرك حاران كان نقوني صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم ويري لفاطمة بنت أبي حبيش قبلنا فاطمة بنت أبي حبيش أي حكيري إذا أقبلت الحيضة حدي ليجي عادة أي كسوقا بشو فدعي الصلاة صلاة كتك وصلاة تكن ميسد رابعا قضب كافرات الصوم وصومكي يذو السون وحكن قنيا حرام بكن قنيا لقوله صلى الله عليه وسلم ويري أليس ميينا أليس إحداكن مدين مييسا أهين إذا حاضت مرك أي ديقا عادة أي هشو لم تصم مد أن صوم ولم تصل مد آن تكنين قلنا مركز وحير هذه بلاها حديث كان وحكي مد مرك ويري النبي صلى الله عليه وسلم ما أرك ناقصات عقل ودين أدينكو كلا كوا عقلك يدينكو ذا وناقص يهي مركاسي waxay dhaheen rasuul Allah maxay sida ku noqdeen oo markaasuu tilmaamay sharaxaad uga bixiyay nuqsaanta diinta ee haweenku lagu sheegay waa in maxaa la yiraahdaa midiin ayuu ku yiri marka dhiiga caadadu ay hesho ma soomayso oo soonkii waa ka tagaysaa salaadna tukan mayso inta marka cibaado la'aanta ay tahay dadka aanan caadada ama dhiiga uusan ku dhicin waa maxay waa tukanayaan waa cibaadeysanayaan marka waa nuqsaanu الدين دينكبا halka naqsi ka galay baynama nuqsaanu aqliga uu ku tilmaamay ma aha inay doqomayeen ama aan tala la weydiinaynin ama aysan waxba hawsha ku lahayn waxa laga wadaa meelaha qaarkood iyo qadaayaadka qaarkood dumarku waa looga xasuus fiican yahay markaasuu nabiga sallallahu alayhi wasallam aqliga naaqiska wuxuu ku tilmaamay marka shahaadada ama markhaati kaca la gudanayo ayuu yiri midiin soo alla ma dhihin an tadilla ihdaahuma fatudhakkira ihdaahuma al-ukhra midiin inay halmaamto oo ay garab marto sidoo warkii ahaa oo tan kale ay xasuusiso inta badan dumarku waxa la yiraahdaa waa cawaatifta iyo emotionka ku badan ودد emotional lagu tilmaamo oo dareenkooda ziyaada ah walidaalika marka ay dhacdo ama xaadisa dhacayso waxa suuragal ah siday ahayd inaynan u soo maxaa la yiraahdaa xambaarin oo waliba khusuusan markay qadaayaadku ama dil iyo maxaa la yiraahdaa waxyaalo badan ay yihiin waxoogaa ma gegsan karaan hadday qaarkood gegsadaan laakiin qaar badan waxa la helayaa aan gegsan baynama markii la isbarbar dhigay iyagii raggu ay ku kala duwan yihiin haddana fi janib aakhar nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku tilmaamay iyagoo sida halmaamka ama naqsiga aqliga lagu tilmaamay haddana ma arag buu yiri kuwa idin kaga ninka kuwan ugu aqliga badan qalbigiisa dhaqso haddana waa qaadanayaan oo wakaa oo intay un hadalka u macaanayaan oo xagga ka soo maraan raggii waxa way waa bedelayaan marka dhinacna waa maxay raggii waa ka aqli badan yihiin oo qolaba meel bay ku badisay oo inay marka dumarku ay dhinac intay isku riixaan ama cuqdad isgeliyaan ma aha qolaba meel bay ku badisay oo dhinac bay ku aqli badan yihiin oo laguma gaaro xagga maxalliga farsamada iyo inay ragga soo duntaan iyo inay wax maxalli yiraahdaa sheekadii jirtay ama ay abuuraan ama ay damiyaan intaba waa ku xeel dheerayaan raggu waa uga daran yihiin marka qolaba ilaahay meel buu aqliga u galiyay تامرك ومحي وصونكي إنيسن سيدا سمينين ومن هنا أيها الدنا
soonka iyo salaada markii haweeneydu dhiigaga ay qabto aysan tukanaynin farqi baa u dhaxeeya oo salaadu soo qadayn mayso baynamaa soonkii ay soo celinayso oo qadaa laga rabo ومن هنا با إسلام أتمت عائشة رضي الله عنها مركزي ويديسي وتري maxaa dhacay haweentu loo weydiinaya inay soo qadayso soonkii isla markaa salaadina aan laga rabin inay soo qadayso markaasi waxay ku tiri xaruuriyatun anti ma waxa tahay islaan dhulka qaryada xaruuriya ka timid miya tahay bimacnaa ma khawaarij baa tahay meeshaasi khawaarijta meelay isku aruursatay oo ay arkaanta ku ahaayeen oo ay ku xooganaayeen bay ahayd iyaga marka qabay fikirka noocaasa marka waxay tuhuntay inay xoogaha halkaasi wax uga soo duseen markaasi tiri maya xaruuriyad iyo khaarijiyad ma ahiye waan weydiinayaa cilmi dalab baan markaasi u sheegtay nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa sida ina amray marba haduu marka sharciga amray i'tiraad ma jiro ka hor imaansho iyo in qofkii wixii ka hor yimaado meesha ma taalo طيب خامسا قضب كشنات حارانتا كن نقونيا هوينيدا markii dhiigaga qabto الطواف وطوافكي oo kacbada inay tawaafto liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam hadalka nabiga li Aisha uu ku yiri radiyallahu anha lamma haadat markii dhiigi xaydka uu ku dhacay ifcali samee ma yaf'alu al-hajj xaajiga waxa uu sameeyo ghayra an la tatufi bil bayti lakin ha tawaafin buu ku yiri kacbada hatta tathuri illa tahir ka noqoto xaajiga haday xaajiyad tahay oo dhiiga caadada ay hesho wax kasta oo xajka ku saabsani way qabanaysaa acmaala kali ah waxaynan sameynaynin tawaafka kacbada ayaynan tawaafi karin سادسا قضب كلحاد حارانتا كان نقونيا هوينك ديغا قبا قراءة القرآن وقرآن كيني أخريان وهو قول كثير من أهل العلم وهذا الأيقبان إن بدن أهل العلم كمدا ومن الصحابة كمدا صحابة النبي والتابعين ومن بعدهم كوك قدالي لكن بوير ورك اللي قلنا قويه إذا احتاجت هذه أباها تهوين إلى القراءة إن القرآن كأخرسه كأن تحتاج وبين أباهنتها إلى مراجعة محفوظها وحياله حفظسي بيربتا إني مراجعيسو أو أي كعشتو حتى لا ينسى سئا الله المامن أو تعليم البنات أما إني قبلها في المدارس مدارس سكولات كديكتو أي ربتا إني وحبرتو أو قراءة وردها أما وحيب الدونيسة حزب كيدي وردي جوكتدها قرآن كي أخرين جرت إني أخرسو جاز لها ذلك أرنك وأبنايهي وإن لم تحتج هديسا أباهن أباهن نوعاسو كلا أيسن جرنا فلا تقرأ قرآن كأخرين ميسو كما قال به بعض أهل العلم سيدا أي فتوضين أما أي شيئين أهل العلم كقاركون مسألة وحبا كل إيران ما إنه هرأي نوصو مرتي ومسألة دي وضوغة إيو جنابة كقبيسي جيديبا وإنه قصو مرتي قراءة القرآن كو ومحي مانع رسمية أما الدليل رسمية أو ديدي لما هيو الدليل قصو عررتينه ضعف باكوة الجرا ومن هنا ومحي علماء بدن أي وحي رجحين إن قرآن كهوين إذو أي أخرين كرتل لكن أيسن تابنين مصحف كام خامسا سابعا وينوص وضع مس المصحف وتابشد مصحف لقوله تعالى بلود للسدي لا يمسه متابت إلا المطهرون كولا طاهرين مؤجيه حديثك عمرو بن شعيب أو لا يمس القرآن إلا طاهر إن صومر إسنه أي لود للسدي إن مصحفك أين تابن كرين هوين إذا مركي أي ديجا قبته ثامنا قلب كسيدات حرام تكن قناة دخول المسجد مسجد كإنه جشوا واللبث فيه ولبا إنه يكون نجاته وأي دح مكثر وامحي والنجانشها يدح جوجد مسجد كوي لقوله صلى الله عليه وسلم بلود للسدي ويري لا أحل المسجد لجنب وحلالين مي مساجد كالروح جنبه ولا حائض إهوين يديق عادة قبته وما حلالين أيو تلمامي حديثكو وحديث حوغها السكويرة خلافسية لكن علماء بدن وابن خزيمة ابن قطان ابن سيد الناس رك بدن أياه تحسين إيو تصحيح كسمي ولأنه صلى الله عليه وسلم محايا للنبي كان وحوها يدني متسور ليحيى أسود ويا رأسه مدحيسة لعائشة عائشة أسود وينجري والحال هي أيضنا في حجرتها أي قل كذي ومساجد كل أي كجرته فترجله مركز يتنت أشل لينجرتي والحال هي أيضنا حائض أي تهي مد حيض قبته وهو أسقنا حينئذ مجاور في المسجد مسجد كأولى الدرس يهي بمعنى هلك وحلقة للسدي سيد ابن حجر أولي هي
xaaidadu masaajidka ma galayso masaajidka inaysan galaynin baa laga daliilsadayo hadday gali karto inuu nabiga sallallahu alayhi wasallam madaxa u soo dhiibto oo ama dariishada uga soo galiyo uma baahnayna inay u timaado oo masaajidka isagoo dhex joogo inay u shalayso ayaa ku filan lahayd marka dalaaladu waadix maaha laakiin waa wax laga fahmi karo ama laga qaadan karo وكذا سيدو كلا يحرم عليها وحاك حرانة المرور في المسجد مساجد كاين دح قادو دح مرتو ودا كدغتو ان خافت هدي كبقدو تلويثه مساجد كاين وسخيسو اي وسخ سو غارتو فان امنت هدي كامان هشو اي كنبد غشو تلويثه مساجد كاين وسخينيسو لم يحرم حران معها دح مريدا اني ودا كدغتو دح قادو حران معها ايو تلماميا labada mas'alo kala gedisan way midna waa masaajidka in la dhex nagaado la dhex joogo waa xaraan haweenta xaydada in nifaaska qabto midna waa maxay in ay ka dhex dusayso oo marin iyo wada ay ka dhiganayso laba loo kala qaadaya buu yiri hadii uu jiro talwiid iyo wasakhayn laga baqayo inay wax ka masaajidka ka gaaraan dhiigeedii looma ogolaanayo waa ka xaraan hadii laakiin amaan laga yahay oo sida hadda zamankan oo kale iyo waxyaalaha dumarka isticmaalaan in ay dhex mari karto oo la dhex qaadi karo laakiin dhex ku nagaansho ma aha المسألة الخامسة مسألة شنات ما شيء يوجبه الحيض وحاو حيض كواجبينيو انت انا كبحين مسألة هوري وحيالها حارانتك ايو تلمامي وحاجر مركا امور ان دب لهين ودمركو اي سمين كران وحكمي ده عيدينك اني حاضران وواتي حديثك أم عطية رضي الله عنها أي تلمامي سنبي وحو أمري جري إن لسو ساره كوا ديق عادة قبه يكوا مقبيضة انتبا إن عيدينك لكينا أي أمري جري مركا ويحاضري كرتا صلاة عامك إيو خيرك إيا عيادة لكن ويكفو غانيسا مصلها ويكفو غانيسا فيعتزلنا المصلى وحسيدو كلا أن دبلهين إن هوينكي ديقا قبي دي si ahaan muslimku marnaba najaasa ma noqdo nafsiyan ama macnawi waa maxay waa tahaaradani waa tahaara xukmiya ama macnawiya weeye ومن ثم إن لا فديسو wax lala cuno wax lala cabo mushkila ma la waanagi soo marnay xadiiska Aisha radiyallahu anha in nabiga sallallahu alayhi wasallam intii uu cabo iyada oo xaydaq intay cabto weelka meesha ay ka cabtay afka ay saartay buu afka la raaci jiray in marka aysan waxba mushkila ay lahayn oo jaahiligi ayaa iska faani jiray ama ka fogaan jiray dumarka sidoo kale inay u adeegto oo u khidmayso iyo waxyaalo dhan ay u soo qabato waa sidoo kale la seexadka inay xataa hal go wada huwadaan wax mushkila ma laha sidii fi xadiisi Aisha radiyallahu anha ku cad baashaalka iyo taataabashada wixii cawrada hoose muqalladka ka sokeeyana iyaduna waxba dhiba ma laha طيب وحليه ما يوجبه الحيض مسألة الشناد وحا واجبين يا حيضك أولا يوجب الغسل وحا واجبين يا قبيس هوين يدو هدي ديقا أي وكدعو قبيس باكو واجبين ولا قربه لقوله صلى الله عليه وسلم بالود لشدي دعي الصلاة لصلاة كتك قدر الأيام مالمها قدرتو دي التي مالمها سو كنت تحيضين فيها وديق حيدك كغد عيجري ثم اغتسلي قبيسا يكيري وصلي تكو هويني ديق عادة كدعي يكيري صلاة اسكده مالمها اد عادة قبتي كدب كقبيسا او تكو تكشدا maxaa ka horeeya marka qabays ayaa ka horeeyo inay waliba qabayskeedu waanagi soo tilmaamnay inuu waxoogaha dalkan shadiidan iyo burburin iyo jirka inay maxaa la yiraahdaa si xoogan ay u dhaqday iyo culimada qaarkood waxay leeyihiin tinta naftirkeeda inay furfurta iyo waxaydka markay tahay ama janaabadu waanagi soo marnay ma furfuraysa qasab ma aha xadiis baaba nasan ku soo arooray midan xaydka naftirkeeda دليل كما سو أرورين لكن waxay ka qaateen culimada marka uu nabiga ku yiri sallallahu alayhi wasallam waa inay si xoogan jirkeeda u daliigtaa oo biyihi ay ku dhaqdaa oo hadana xataa cadar iyo suuf iyo waxyaalo badan ay adeegsataa baa la isugu daray kayfiyada ay isaga dhaqayso marka waa qabays u baahan nooc mubaalaga iyo ku xeel dheeraansha ثانيا qodob kalabaad waxay ka waajibinaya albuluq wa qaangaar haweenaydu marka uu ku dhaco dhiiga waa maxay waa qaangaartay
qof weyn oo mas-uula oo ayay noqonaysaa oo takliifkii iyo waajibaadkii sharciga iyo wixii oo dhan baa laga rabaa waajibaadkii sharciga oo dhan ayaa laga rabayaa bikhilaaf da'da marka la tixgelin mayo wadamadani waa maxay da' badan baa la tixgeliyaa soo maaha da'daasi waa wixii dee qawaaniinta waddankan iyo howlaha ku saabsan laakiin markii ka shareeco ahaan iyo cibaadaadkii iyo takliifkii shareecada islaamka ay waajibinayso gabadhu mar alla markii dhiiggaa lagu arko waa qaangaartay sida qofka weyn ee dumarka waaweyn oo kale loola dhaqmaya meelay ku kala duwan yihiin ma lahan albuluuq liqowlihi sala allahu calayhi wasalam uu yidhi laa yaqbalu allahu alle ma aqbalo salaata xaa'idin haweenay dhiigga caadada ku dhacay salaadeeda ilaa bikhimaar ilaa xijaab iyo asturaad inay jirta ma ogiye faqad awjaba calayha asitra wuxuu ku waajibiyey is-asturid bixusuuli lxaydi marka uu dhiigga xaydka uu ku dhacay fadalla marka wuxuu ku tusiyey arrinkaa calaa ana takliifka iyo shaqo isku diridda islaamka uu ogol yahay xasala bihi inuu ku xasilayo xaydka uu ku xasilayo gabadhii ku dhacay wainamaa yaxsulu dalika bilbuluuq ثالثا qodobka saddexaad alictidaadu bihi way ku cidda tirsanaysaa waxyaalaha uu waajibinaya waxaa ka mid ah haweenaydii haddayba caado dhiigga uu ku dhaco xaydka kuwa aan gaarinna aysan ka mid ahayn kuwa ka bixiyey oo ka gaboobay oo kontonka iyo ka gaaray aysan ahayn ee dhiigga caadadu ay hesho kol haddii la furo ama laga dhinto waxa loo xisaabinayo ay ku cidda baxaysa waa maxay haddii laga dhinto maaha haddii laga dhinto waa maxay 4 أشهر و10 واي وباب كلا واي وهدي لفره waxay ku cidda tirsanaysaa waxay ku cidda tirsanaysaa xaydkan bay ku cidda tirsanaysaa al-i'tidaadu bihi fatanqadi al-'iddatu ciddadii way go'aysaa fi haqqi al-mutallaqati tii la furay xaqeeda iyo wanaxwiha midda la midka ay bil xayd buu ku go'aya liman haweenay kaanat ahayd taxiidu xaysho haweenaydii dhiigga caadada uu ku dhacayay ciddadeedii oo furitaanka waxay ku dhammaanaysaa markii dhiigagaa la sheegay uu dhammaado liqowlihi sala allahu calayhi liqowlihi tacaala uu yidhi alle waalmutallaqaatu kuwa la furay yatarabasna waxay sugayaan oo koranayaan bianfusihinna naftooda 3 quru'in 3 qur'i yacni 3 xiyad 3 dhiig oo caadaa inuu ku dhaco haweenaydii haddii la furo ciddadeedu hadday tahay kuwa dhiigga caadada uu ku dhaco waxay ku cidda tirsanaysaa 3 dhiig markuu ku dhacay ka daahir noqoto raabican qodobka afaraad uu waajibinaya dhiigaga wuxuu waajibinayaa alxukmu in la xukumo oo la gooyo bibaraa'ati raximi inay haweenaydu raximkeeda uu bari yahay uu saafi yahay في الاعتداد بالحيض marka ay xaydka ku cidda tirsato bimacnaa haweenaydii hadday dhiigaga ku cidda tirsato waa maxay dhiigaasi ay ku cidda tirsatay wuxuu cadaynayaa in raximkeedii uu bari yahay bimacnaa uur aysan lahayn in uusan uur jirin ayuu cadaynayaa waxyaalaha lagu xukmiyo waxaa ka mid ah dhiigagan inta uu jiro tanbiih buu ku yidhi waa baraarujin idaa tahurat alxaa'idu haweenaydii hadday xaa'idadahayd ay daahir noqoto aw innufasaa'u ama tii dhiiggii dhalmada qabtay ay daahir noqoto qabla guruubi shamsi inta aysan qoraxdu dhicin hadday daahir noqoto lazimahaa waxaa ku laasimayo waajib ku noqonaya an tusalliya aduhra waalcasra inay tukato duhurka iyo casarka min hada alyowmi ee maalinka ka mid ah haweentii hadday dhiiggii intuu ku dhaco ay ka daahir noqoto maalan duhurkii oo lasoo dhaafay oo la maraya casarkii ama xataa casarkii oo la dhaafay oo qoraxdii oo aan dhicin oo la marayo hadday ka daahir noqoto dhiiggii waxaa la rabaa inay soo qadayso duhurkii iyo casarkii maxaa yeelay bay dhaheen waqta salaati اluulaa waqta asalaati athaaniya fi xaalati alcudri bay dhaheen waqtiga salaada hore waqtigeedu waqtiga dambena waa noqon karaa salaada ku xigta waqtigeeda haddii cudurdaar iyo marmarsiyo musawiqa uu jiray waana jiraa hadda gabadha dhiiggaas ayay ku dhacay baa sabab u ahaa saasay leeyihiin ayib waman ruuxii tahurat daahir noqoto minhumaa labadoodaas ka mid a bimacnaa waa xaa'idadii ama tii nifaaskii qabtaye qabla tuluuci alfajri waaga intuusan baryin ayay daahir noqotay lazimahaa waxaa ku laasimaya
أن تصلي المغرب والعشاء إني مغربك يعشه تكتو من هذه الليلة هبينك كمدة لأن وقت الصلاة الثانية وقت صلاة اللبات وقت للصلاة الأولى وقت أي وحوتها صلاة هره في حال العذر مركع عذر دار أجره وبه قال الجمهور أرن كان وحاق يري جمهور علماء مالك إمام مالك والشافعي إمام الشافعي وأحمد إمام أحمد أيها سد حدبة وحي كتغين إن هوينتو أي سيدا نقونيسو صلاةها أي قضينيسو قرحضو إنت يسندعين هذي طاهر نقطة لبدا صلاة ويسو قضينيسا إنت وسن قرحضو صوبحين هذي هبين نمدي طاهر نقطة مغرب كي عشيهنا ويسو قضينيسا بوهالكا كتل مامي waxaa la mid ah mas'aladaas haday haweeneydii qabla al-asr casarka horti wax yar ka hor ayuu dhiiga caadada ku dhacay casarkii baa loo dhow yahay salaadii duhurna maysan tukanin say u dibdhigaysa dumarku dibdhiga waa ku badan yahay hawlaha iyo mashquulka adduunka iyo guriga iyo laga yaaba ilmihii iyo intuu kadib dhacay duhurkii ayaa casarkii oo soo dhow oo waqtiga casarka uu soo galayo ayaa dhiigii caadada ku dhacay salaada duhur miyaa laga rabaa dabcan dee ma tukan karto dhiigii caadada ku dhacay oo maalmuhu socon doonaa markay daahir noqoto salaada miyay soo qadaynaysaa nacam way soo qadaynaysaa maxaa yeelay iyada ka tagtay isagoo ku waajibay waqtigeedina tukan weysa waa salaad waqtigeedii galay oo laga tagay marka waa la soo qadaynaya waxaa ka mid ah masaa'isha intuusan nifaaska aanan u gelin ku tacalluqa soonka hadday haweeneydu ay daahir noqoto fajarka hortii salaada fajar horteeda hadday daahir noqoto iyadoo aanan qabaysanin way soomi kartaa haddii maalan waqtigii suxuurta la gaaro ay daahir noqotay laakiin weli aysan ka qabaysan oran maysa weli ma daahir noqonin daahir noqoshada qabayska maaha qabaysku waa takmiladii laakiin dhiigga uu uga go'ay oo ka istaagay oo ay ka daahir noqotay dhiig kale uusan jirin hadduu waqtiga suxuurta uu ku soo galo way suxuuranaysaa adaankii ha ku dhaco kadib waa qabaysanaysaa markaas salaadeedii tukanaysaa iyadoo soonkeedii xiratay oo niyeysatay waxaa kaloo iyadana soonka la xiriira hadday daahir noqoto inta aysan qoraxdu dhicin bay daahir noqotay maalinta inta ka dhiman miyay af haysanaysaa oo maxaa la yiraahdaa qof sooman oo kale laano markii hore way afurneed laakiin hadda waa maxay waxay noqotay qof dhiigii uu ka istaagay oo daahir noqotay sida raajixa waa maxay in ay iska afurnaanayso maadaama bidaayadii maalintaba si sharci ay ku afurtay isla markaa way sii wadanaysaa walow culimada qaarkood ay leeyihiin waxaa fiican xurmatu dalika alyawm maalinta xurmadeeda iyo weyneynteeda iyadoo la weyneynayo inay muslimiinta isku darto iska afhaysato wax waajibinaya marka ma jiro laakiin waa culimada qaarkood ayaa isjeclaysiiyey arrinka qodobka kale asna tilmaamida u baahan haweeneydii haddii dhiigga uu istimraaro bimacnaa maalmihii ay tirsan jirtay maalmo ka badan buu dhiiggii ka socday oo 7 beri oo kale ahayd markaasay 15 beri oo dhiiga baa sii socdo ay kala garan laadahay laba loo kala qaadayaa hadday ahayd haweeney kala taqaano dhiigga noocyadiisa dhiig furanka ah iyo tilmaamihiisa iyo dhiigga ah xaydka iyo tilmaamihiisa dhiigga xaydka waa anagii soo sheegnay waa dhiig madow culus adag isla markaa maxaa la yiraahdaa raa'ixa daran leh wahaakada tilmaamahaasuu leeyahay baynama dhiigaga kalena ay ka gedisan yihiin hadday tilmaamihii kala taqaano markii ay tilmaamtii dhiiggii xaydka ay weyso way daahirsanaysaa salaadeedii iyo sideedii caadiga ay kusoo laabanaysaa haddii markaa ay tahay qof aan kala garanaynin oo mutaxayiradii ama waaba qof ku cusubba oo maxaa la yiraahdaa way ku cusub tahay markaasi waa maxay way joogteenaysaa ilaa ay ka daahir noqoto allahumma inuuba wixii xadka ka baxo dhiig furan markaa weyn oo uu noqdo oo sidii aan ugu tagnay saxaabiyadii tiri maxaa la yiraahdaa rasuul allah dhiig furan baa igu dhacay markaasuu ku yiri tahayyadi fi ilmi allah 6 aw 7 ayyam qadar
تضبا أما اللح بري علمك إلهي كقدر أو أنت كلنا ومحي طاهر باتايو ديجا وديك فرن لبدا النوع يا إيجانا لو كلا قاضية sidoo kale waxa iyadana muhiim mas'alada ah haday haweentu uu dhiigu مثلا toddoba bari oo kale ayuu caadadii ku dhici jirtay markaas laba bari ama saddex bari markay dhiigi si xiriir u heshay bay laba maalmood bay dhiig weysay maalintii hadana lixaad ama toddobaad bay dhiigi ku soo laabtay maalmaha dhiiga uu kala go'ay oo dhexda ku jiro ma waxa la ictibaarinayaa sidii qof daahira mase qof dhiigi xaydka qaba la ictibaarinaya waxa la ictibaarinaya hadayba tahay maalmaha ay kamid tahay maalmihii tira ahaan ay tirsan jirtay toddoba kale ay tirsan jirtay markaas saddex bari markii la dhaafay bay hal maalin ama laba maalin dhexda weysay hadana labada maalin oo dambe waa ka yimid dhiigi waxoo dhan waxa la xisaabinayaa inay xaa'ido tahay salaadna ma tukanayso mana soomayso ahkaamtii aan soo sheegnay oo dhanna waa ka ratimaysa inqitaaca cibra ma laha xaa'ido ayaa loo ictibaarinayaa ilaa ay si toosa ay u taahir noqoto طيب maxaa lagu garanayaa inay haweeneydii taahir noqotay waxa lagu garanayaa taahirnimadeedu waxaan la yiraahdo dumarku inta badan waa iyaga wax xirtaan marka ay dhiiga caadada uu ka socdo oo ulweysiyada iyo xafaayadaha iyo bahalada loogu talagalay in alaabaha u xirani inay qallalan yihiin oo nadiif ah inay aragto hadduu istaago oo wixii u xirnaa ama maradii ama wixii meesha celinayay oo nadiif ah oo waxba lahayn ay aragto waa maxay taahir bay noqotay ama waxay dhahan waxa lagu garanayaa inay taahir u noqotay oo dhiiga uu ka istaagay alqasata albayda biyacad oo raximka ka yimaado inay isku aragto wixii inta ka dambeeya calowga ama waxaan calowsan oo dhiigna aanan ahayn saafina aanan ahayn oo isku arkayso wax mushkila ah malahan waa maxay watii umcatiya ay dhihi jirtay kunna la nu'iddu al-kadrata wala as-sufrata ba'da at-tuhri shay'an yalowga iyo jaalanimada ama calwitaanka iyo waxaan isdhex guuraya marka aan taahir noqono waxba umaanan arki jirin bimaana wixii duba dhiigi u dhamaaday waxaan kale ka dambeeya i'tibaar gabadhu siin mayso المسألة السادسة مسألة لحاد وحوي أقل النفاس وأكثره ديجا دلمضة أنت أجير إيه أنت أجبضا لا حد ما لها بيقول لي أقل النفاس كأنت أجير وحد ولا ما لها هوين يذو وحده أو أي ديج دلمضة أجا طاهر نقون كرت مجرته محايل لأنه لم يرد فيه تحديد وحدين يا مسوا أرورين فرجع فيه إلى الوجود وحال مرك الله لابتي ومرجع لقد جاي وجود كي وحسيد الله هلي سيد الله أركي وقد وجد وحنا لا أركي والله هلي قليلا هويني ديجي دلمضة وكل عي وح ير ومحليها كسعودي إيه وكثيرا ديج بدل مدة مع المطر جوكتي أيا الله هيا مرك وقت ملها وحاول مهمة إن ديجا وكيستاغو أي كطاهر نقطة أي سكويسه ولو لو مالين هل مالين الله كدغه way ku taahir noqon kartaa marka xad malahan liaqallihi wala liaktharihi wa aktharuhu bir inta ugu badan gaalibku ka hadlaya 40 yawman wa 40 maalmood anagu 40 kun ba qabsanaa Soomaha 40 bay ku jirtaa 40 ka sharti maaha ka hor bay taahir noqon kartaa ka hor bay taahir noqon kartaa wa aktharu 40 yawman qara at-Tirmidhi wuxuu yiri ajma'a ahlul ilmi waxay ku ijmaaceen ahlul ilmiga min asxaabi nabiy sallallahu alayhi wa sallam nabiga saxaabadiisa ay kamid yihiin iyo man bacdahum cidi ka dambeysay ala anna an-nufasaa haweeneyda nifaaska qabto waa dhiigi dhalmada tad'u as-salaata inay salaada ka tagaysa 40 yawman 40 maalmood bay iska taynaysa salaadii illa an tara at-tuhra inay ba aragto ma ogiyo taahirnimadii qabla dalika 40 ka hor 40 ka hor haday taahir noqoto دي صلاة دي وتكنيسا وطاهر حدي إسكا وديق سعودنا أفرتنك بريبي جوجيسا فتغتسل مركز قبيسنيسا وتصلي وتكنيسا ولحديث أم سلمة بلود لشذي كانت النفساء هوين إذا نفاس قبت وحيد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقتك نبيك تجلس متفرسة 40 يوما أفرتن مع الموت طيب انت استمرك ومحي وغالب وحاو أفرتن أفرتن مركب ما كبدنان كرا طبعا وكبدنان كرا حد مجرو لكن سيدا غالب كوه وأفرتن دمر إن بدن وكمده حدنا
inta ugu yarna la garan mayo way ka hor waa daahir noqon kartaa mas'alada intaas uga baxay nifaasku marka culimadu waxay isku ijmaaceen inuu la mid yahay dhiigga xaydka dhammaan axkaamtii aan soo marnay wixii xalaasha u ahaa wixii laga xaaraantinimeeyey wixii karaahada ka ahaa waxaasoo dhan ayay isaga mid yihiin kaliya waxay ku kala duwan yihiin dhiiggan nifaaska ciddo kuma xasisho baynamaa xaydkii ciddada ay ku xasilaysay lianno maxaa yeelay ciddada nifaasku waxay dhammaatay dhiiggan intuusan dhicinoo dhalmada bayba ku dhammaatay wa inama alxamlu aladii qablah dhalmada ayay ciddada uga baxaysaa markay dhashaba ciddada way ka baxaysaa dhiiggan intuu socdo ma ahan inay furniinkii hore iyo ulug xiran tahay ma aha ee sidaas ayay ku madax bannaanaatay oo ciddadeedu ay ku dhammaatay المسألة السابعة مسألة تضبط في دم المستحاضة وديجي هوينتي مستحاضة هيد ودبر فرنكا الاستحاضة وسيلان الدم ديجا أو صعده في غير وقته لو تلقلي وقت أنا أهين إنه ديجا إسكي ماذا وحال يرهده استحاضة على سبيل النزيف ولما وقاب ديك فرنة أما ديك بح نزيف كوا ديك بحوي قاب ديك بحه ama dhiig furana ayuuna ku imaanayaa shubmitaanka iyo socodka min cirqin buuna ka imaanayaa xidid oo yusamaa lagu magacaabo alcaadil xidid magacaas leh dee af soomaaliya haddaad u haysaan magac waad sheegaysaan haddii kale waa un alcaadilkaas wey ayib wadamu listixaadati dhiigga istixaadada yukhaalifu wuxuu khilaafaa dam alxaydi waa ka gedisan yahay bimacnaa dhiiggii xaydka fii axkaamihi xagga axkaamta waa uga gedisan yahay وفي صفته حق المامتنة وأقبل وهو دمك استحاضه وعرق حدد وينفجر برقنية في الرحم رحم ككسو برقنية أما كسو بودية سواء وحاسما كان هيا ديق استحاضه إليك فرنكا في أوقات الحيض وقت عادة أي إسلام تهيلي سوى صعنكرا وإيمانكرا أو غيرها أما وقت ديق عادة وسنجوغين بو إيمانكرا وهو دمك استحاضة وإيه لا يمنع الصلاة صلاة ما منعيه هوين ديك فرنك قبطو صلاة اللو ديدي ميه ويتوكنيسا ولا الصيام ما منعنا يه ويسوميسا ولا الوطأ قلمدي جماعنا منعن ميه ولا ومحي ولو تجي كراه لأنها محيلة في حكم الطاهرات وحيل حكم تهي هوين كطاهر كوديق آنا قبل ودليله دليل كيس حديث فاطمة بنت أبي حبيش بلو دليل سدي حديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت حيتري يا رسول الله رسولك إلهي وإني أنيق استحاض ديك فرن كاسا يقول استحاضة داس أيان أهي فلا أطهر مطاهر نقضه بمعنى وقت الدرب إغا سعودا وإجوكتيا أفأدع الصلاة صلاة ميان استقدتها واسكدايا فقال مركز النبي وحكيري لا ميا إن ذلك كاغس عرق واحد وليس بالحيضة ديجي عادة أهانا معها فرق بقول دحي وكيري ديجا هدا شيغيسو يكن صلاة يصونك لو ديني وكلا قديسيهين فإذا أقبلت الحيضة مركي ديجاجي حيضة عادة أي تمادو فدعي الصلاة صلاة كتر فإذا أدبرت مركا أي تكتؤيد لما هذا ديجي حيد كنا فاغسلي عنك الدم ديجي اسكدق أو وصلي تكو ولو ديجي كلو ديك فرنكاها هذا الصعودة هوين تاني waa maxay inay muddo dheer 7 siniin iyo riwaayaadka qaar kood ayaa la sheegaa 7 sano inay dhiig furankaas ku imtixaaneed markii ay su'aasha weydiinaysay markaas waa maxay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri waxay iska daynaysaa waqtiga kaliya oo dhiiga xaydka uu jiro oo bay salaada ka tagaysaa markii xaydka uu dhamaadana way ka qabaysanaysaa kadib bay tukanaysaa fayajibu calayha waxa ku waajiba an taghtasila inay qabaysato عند نهاية حيضتها المعتبرة مركا أي دماته حيض كذي لا عبرسيني ولا تحقليني حيض كي تحقلين تمنا وقت جيس مركا ودماضه ويكاقا بيسانيسا وعند الاستحاضة مركا وديك فرنكا وجيرنا تغسل فرجها فرج كذي دقيسا أو تجعله حياليسا في المخرج ماشا وديك كسو بحيوا قطنا أياليسا صوف ونحوه وحلمده كاسو يمنع منعنا يا أمديد يا الخارج وحصوب حيا وتشد عليه وحين
adkaynaysaa oo ku dhuujinaysaa maa shay oo yumsikuhu ka celinaya can isuquuti inuu soo dhaco qutnigaa ay meesha ku celisay waxay ku dhejinaysaa wax u diidaya inuu soo dhaco wayugni can daalika buu yidhi waxaa kaagaas kaaga filan alxafaa'id asixiya xafaayadaha caafimaadka ay fii hada alwaqti la isticmaalo ayaa kaaga filan uma tatawada'u way weysaysanaysaa xafaayaduhu dee waa taqaanaa waa bambariska iyo waa iska carabi moogta waa carabi la af soomaaliyey wey marka في هذا الوقت ثم تتوضأ ويسيسنيسا عند دخول وقت كل صلاة كستمركي سوغشو ويسيسنيسا روايات قاركوت تلمامي يجري صلاة كستيني أي قبيسن جرتي هويني دي حادثة داس أي كل عضي وفاطمة بنت أبي حبيش أهيد وكانت تغتسل لكل صلاة لكن واجب معها النبي صلى الله عليه وسلم واجبيه ما هي نبي أنت وشاق وحيا هيد dhiiga caadada markuu dhamaado ka qabayso kadib inta aad dhiig furanka uu jirana waa maxay salaad kasta u weysayso haday qabaysato marka sida waajibku ma macna laakiin waa yeeli kartaa wal mustahaadatu haweeneydii dhiig furanka qabtay laha 3 xaalatin 3 xaalad ay leedahay 3 nooc weeye ayaa loo kala qaadaya al xaalatu al-ula xaalada hore كيسك هوري أن تكون لها وإني أسقنيد عادة معروفة عادة لا يقانو وقت لا يقانو بأن تكون وإني أهيد مدة الحيض وقت حيدك وكدعه معلومة لديها أكتاد مثل قرنيو وقت وديق حيدك كدعه ويتقانا قبل الاستحاضة انت أي سنديق فرن كانوا سنكدعين أي هراء تقاني وقت حيضة ذا أي إيمان جرتي فهذه مدى النوعانة تجلس ويفديسانيسا قدر عادتها inta dhiigeedii caadada xaydka uu ahaan jiray maalmihii ay taqaanay oo xaydka uu ku dhici jiray sugaysa ay fadhiisanaysaa watad'u salaata was-siyaam salaadii iyo soonkiina way ka tagaysaa maalmahaas ay garanaysay watu'addu waxaana loo ictibaarinaya oo loo tixgelinaya oo lagu tirinaya xaa'idan inay tahay mid dhiigii xaydka qabto fa idan intahat marka caadatuha markay dhamaato maalmihii caadadeedii ay heli jirtay ightasalat way qabaysanaysaa وصلت وتكنيسا وعدت الدم وحين كترينيسا ديغي الخارجي صوبحي وحي انت كدنبيا دم استحاضة انه يهديك فرن لقوله صلى الله عليه وسلم بالودلس لأم حبيبة وكيري كثي سجنو او جوك قدر ما كانت تحبسك حيضتك انت اي حيضادو اما عادادو اي كحبسي جرتي اي جوغي سابو كيري ثم اغتسلي كدبنا قبيسه oo wasalli tuko ayuu ku yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam xaaladda hore waa maxay waa haweenay horaan uu ugu dhici jiray xaydkii dhiigi caadada ayaa ku dhici jiray wayna taqaana maalmuhu ku dhaco midalan aan badhahnaba waxay ka heshaa dhiigeedu maalmuhu 10 ku ka bilowdaa bil walba 10keeda markay tahay ilaa wuxuu ku dhacaa 15 shambari amal aan ku qadarno inuu yahay kadib dhiig furankan bay isku aragtay maxay sameynaysaa maalmihii xaydka oo ahaa 10 ilaa 15 maalmaha dhiigii caadadeeda uu imaan jiray ayay joogaysaa salaadna ma tukanaysa ma soomayso ahkaantii xaaidada ayay iskala mid dhigaysaa marka ay maalmaha la dhaafo oo 16 wixii ka dambeeya dhiigaas sii socda waxay u ictibaarinaysaa inuu yahay dam fasaad oo dam istixaada dhiig dabar furana inuu yahay طيب الحالة الثانية حالة اللبات إذا لم تكن لها عادة معروفة هدينا حوينتي أيسان لهين عادة لا يقانو بمعنى مالما معينة أو ديق أي هشم جرو لكن دمها ديقيد متميز وسعيه بعضه بركي يحمله حنبار سيه صفة الحيض صفة حيض كأي حنبار سيه وحكوليه مالما معينة أو ديق أي كردعه ما تقانو أما وحي وإساق خلدمين ama waatu mubtadi'a oo hadiba u horleeyahay markaas dhabar furan iyo xaydka isugu yimid wahaakada maalmo muayana ma taqaano laakiin waxay garanaysaa damigeeda waa mutamayiz bacduhu qaarkiis ayaa dhiigu wuxuu leeyahay sifat alhayd dhiiga ay helayso qaarna xayd tilmaamtiisu leeyahay oo inuu madow yahay culus yahay raa'ixa kariiha uu leeyahay wahaakada tilmaamahaas uu leeyahay kan kalena malahan
marka wuxuu yiri laakin damuha dhiigada mutamayyiz wa kala soocan yahay oo bacdu barkiisa yaxmilu wuxuu xambaarsan yahay sifata alhayd sifadi caadada بأن يكون وإنه نقض أسود مد مدو أو ثخينا مد علس أو أمس له رائحة شرب ليه والباقي إيجا انتي سكلنا يحمله حنبارسية صفة الاستحاضة تلمامتي استحاضة دي فرنكي ودم أحمر ديك جدودا ليس له رائحة آنا اللهين وح رائحة أي شير ففي هذه الحالة حالة دانتنا ترد إلى العمل دي وحلو علينا يا إني كو عمل فشو بالتميز كالسوعتانكا لقوله صلى الله عليه وسلم أويل لفاطمة بنت أبي حبيش وكيري إذا كان دم الحيض حدي ويديك حيض فإنه أسود ومذوي هي يعرف ولا يقاناي فأمسكي عن الصلاة صلاة كإستاغ أو كقبصو أو كجوب فإذا كان الآخر هدو ديق النوعي سكليه هي ديقاس مذو وصنهين oo dhiiga noociisa kala istixaadada uu yahayna fatawadda waysa qaado oo wasallituka fa inma in kala moogay huwa cirqun wahid ee ma aha hayd xaaladan labaad muxuu yiri haweenti maalmo muayana malaha laakiin waxay kala taqaanaa labadii dhiig midna hayd bay u garanaysaa tilmaamtiisa midka kalena waxay u garanaysaa inuu yahay istixaada oo dhiig guduudan oo aan raa'ixa lahayn marka saasay u kala soocaysaa maalmaha tilmaamta dhiiga haydka ay heshayna waxay sameynaysaa salaadii way ka joogaysaa maalmaha dhiiga guduudan oo dabar furanka ahna salaadeedii way tukanaysaa way weysa qaadanaysaa salaad walba alxaalatu thalitha xaalada saddexaad idaa lam takun laha caada haweenti ma laha caado bimacnaa maalmo muayana oo dhiigu ay hesho oo xaydkii ma garanayso maalmo muayana ma lahan walaa sifa tumayizu biha alxayd min gayri tilmaam ay xaydka uga soocdo dhiiga kale noocyadiisa kalena tilmaamahaasna ma taqaano oo way kala garan weysay فهذه مدني تجلس ويفديسانيسا غالب الحيض انت حيدك غالب كوه انت ugu badan حيدك 6 6 بري او 7 ama 7 بري ayay iska joogaysa oo salaad tukanaynin oo aysan soomeynin لأن هذه محايا عادة غالب النساء دمر كبدن كوده عادة وي وما بعد هذه الأيام وحي مالمها كدن بيئو من الدم ديغانا يكون دم استحاضة بنقنيا ديك فرن بنقنيا تغسله ويدقيسا ثم تصلي وتكنيسا وتصوم ويسوميسا لقوله صلى الله عليه وسلم بالود لحمنة بنت جحش أكير قبدا إنما هي ركضة وهرانتئ من الشيطان كأهاتي فتحيض مركز حيض سيبو يري 6 أيام لحمى الموت أو 7 أيام أما تضوم الموت ثم اغتسلي قبيسو فإذا استنقأت حدي أضنظيف صدمته وأطاهر سته بمعنى مركي لحدا بري أما تضوضا بري لصودا فصلي تكو وصومي صوم فإن ذلك كاغس يجزئك وكاغف إليه ومعنى ركض من الشيطان وحلق وضع يعني دفعه والريحس أي يعني إن الشيطان شيطانك هو الذي حرك هذا الدم وعدة دقاجس إيقاني سببتي وإساقا هرانتي ذا كردفتي قيبت السدحات وإن هوانتي أيسان لهين maalmo muayana oo xaydkii uu ku dhaco isla markaa tilmaamo ay ku kala garanayso labadii dhiigna uusan jirin tilmaamo ay ku kala garanaysana uusan jirin kol haday sidaa tahay waxay sameynaysaa 6 maalmood ama 7 maalmood bay iska qadaraysaa inuu yahay dhiigii xaydka inuu yahay markay 6 ama 7 maalmood ay qadarto bisha inta soo hartay oo ah 24 maalmood ama 23 maalmood waxay u qadarinaysaa ama u ictibaarinaysaa inuu yahay dhiig furan isla markaa way tukanaysaa salaad walba intay u weysaysato oo way soomaysaa oo sidii gabdhihii taahiraadka ahaa xukunkeedii kale ayay qaadanaysaa inta ayuu wuxuu uga soo baxay baabkii ahaa baabu alxayd والنفاس kadibna kitaabkii labaad oo kitaabu salaah intaas oo dhan waxaan ku soo dhex jirnay kitaabu tahaara ayaan ku soo dhex jirnay waxaan bilaabi doonaa insha Allah ta'ala darsiga soo socda haduu rabbi awooda sare la idmo kitaabkii salaada ayaan bilaabina hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in